بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ووقت دنبه كمان محوها هاي السوق بقرياش دلنيرة هوينك بربار وينها حبناها أما محوها دتك كترسن حزبية ملشة يتاجرياش هذا يهجانك حزبية وجوه قدوميها مدشة لما أنتين وحدكم سلام يا مركلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كجدال مناسبة ما أنت يقود بدي أي لهيد قدوميها يا جيدين دون هديال اللي يراده وحان رباه كريا هذا ضدك ماشان سوء استاجوردن وفنا أنا وكتجين كل اللي وضع الشاقي إن أنا جانا عدك إنتان كبيري أنسيح وجيارة walaalkeen Professor Xasan Sheekh wuxuu ka hadlay dastuurka iyo inuu yahay heshiis bulsho wixii lagu safayn lahaa oo macnaha Soomaaliga dhabta wato bulshada yani heshiis ay gashay waay bulshada gashay inta meel isugu timiday ku heshiisay sidaan ayaan u dhaqmeynaa saanaan kan wax xukumaaya iyo kan la xukumaba waxaana ka dhaxeeya حقوقنا لا واجب كان إصرار نصيب درو مر بدن ما دخل جرين هشيس كاس مر بدن أما أقول الآن أقول الآن هنجا حتفسه أما سؤال كعه الله وحياه ميد وحا قدام بيالي كان لسيسيده المريد سدحات الصومالية وحيلها دستوركم الجارة أو أخيار صوماليات أو رقي دمر بله oo dadweynaha Soomaaliyeed mujtamaca bulshada Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan wakiil ka ah ayaa inta isku yimiday ayaa dastuurkeena si ku meel gaara ilaa fursad looga helayo si ku meel gaara karan ku sii dhaqmaynaha la dhahay macnaha waxaas markay ku meel gaar yihiin waxba ka dhiman sharciyada ka dhiman maxaan ku raadahay waxyaabo badan oo soo bixi doona ka dhiman dastuurkuna waa dad wuxuu qoray maalin walba waxba lagu daraa waxba laga bedelaa waa la sii xoojiyaa waayaha markaas la joogaa mar walba la sima waxaan rabaa marka dastuurkeena ku meel gaarka ah in badan oo kamid ah wax waa ka qabyo waxna waa ku yaalaan hadda kii dhinay dhameystirkiisa iyo wixii ka maqnaa ku soo diristooda maxaa gaaraya soo kama horeyso marka hore wax horta isaga ku yaalo inaan isku dayno intii karaankeenna inaan ku dhaqanno intii karaankeenna inaan dhaqan gelino isagaas muxuu ahay aan meel marsiino intaan awoodno waxaan awoodi weyna anagoo og inaan dhaano warkan maxaan ma awoodno maanta maxaan sameynaa waqtiga dib u eegista dastuurka la sameeyay lagu daro maya aan sidaan uga dhaqanno haddana wuxuu waa heshiis meel ay ku sheegan tahay ma jirto anaa iri anaa muxuu ahay go'aamiyay anaa waxeeyay heshiis bulshada ay ku heshiisay iyo dadka bulshada wakiilka ka ah meel ay ku heshiiyeen dadka bulshada wakiilka ka ay soo dirsata bulshada oo heshiiye waxay la mid tahay bulshadii heshiisay la mid tahay ilaan codkii iyo taladii iyo ra'yigii dadkaasay muxuu ahaa heshiiska ay qayb uga noqonayaan marka waxaan rabnaa awalba waa meesha dhibaatooyin badan oo maanta jira ay naga soo gaareen inaan fahamno dib ugu noqono adkayno iyo inaanan raalli ka noqonin wixii da tabari meeshayna dhigto waa halkeed laakiin inaanan raalli ka noqonin in lagu jawr falo oo lagu takri falo oo la waxeeyo oo waxa dastuurka diidayo dhan dadka Soomaaliyeed dulqaaday aad iyo aad u leeyihiin dulqaadna way leeyihiin dadka qaarkiisna iskuma shideen buugan yarka oo 4 page inay rogrogaan oo aqriyaan ay fahmaan iskuma shideen dastuurka hal aqriyo hal barto saxaafadda Soomaaliyeed aan waliba si gaar ah u tixgelinaa dastuurka waa la sheegaa inuu ku meel gaar yahay laakiin waxa hadda ku qoran in dadka loo sheego oo ay maqlaan oo ogaadaan waa muhiim marka iyo qawaaniinta kale oo jirto dhanbo ayagana oo nooc kale oo dastuurka ka sii hooseeyo oo heshiis bulsho ayagana waxaan joogin oo soo socdo la odorosay ayaa qaanuunku ka jawaaba war biri haday sidaa dhacdo maxaan ku xalinaynaa marka waxaan saanaan ku xalinaynaa wixii la yiri waa dhaqankeena caadiga ah oo baadiya aan ku naqinay oo Soomaalidu ay dhigi jirtay gari gacmo la'aan ayay geed kugu xirtaa gartu gacmo ma leh qof socota ma ah xoog ma leh haddana geeda inta lagu xiro ayaa muxuu ahay waa gafti lagu leeyahay ratiga cidaad u dhaansato soo gowraca lagu leeyahay intaas oo xaalad bixiya lagu leeyahay waa garteeni magaalo ee qarniga 12aad maxaa ah dastuurka
dastuurka ah dhowrsiisa saarnaa iyo wax walba inuu ka sareeyo dadkan dastuurka inuu ka adkaadaan dastuurka inuu dad ka sareeyo oo loo hoggaansamo qofkii hoggaansamo waa in la qabto garti gacmalaanta geed ku xiriirsan laga dhigo intaas kadib mashruuca kale maanta taagan ee doorashada wixii laga dhihi lahaayo aad iyo aad u faahfaahsan waa laga yiri laakiin haddana maadaama xaajo taagan ay tahay oo muuqato in qof walba Soomaaliya uu hadlo waa ku qasban yahay inuu wax ka sheego doorashada dawladda federaalka ee dalkeena ka talisa maanta 4 sano oo fursad ay haysay inay ka shaqeyso way habooneed inay ka shaqeyso haddii sabab ay ka shaqeyn weyday oo annagu hadda maanaan fahmin noomana sheegin dawladda duruufaha ku kalifay duruufo ay ku kalifeen in doorashadii ay ka shaqeyn weydo la qaban waayo annaan la qaban karin waqtigeedii sida guddiga muxuu ahay madax bannaan uu noo sheegay halka dariiqo kale u furan waxa waaye saan wax yeelnaa dadka inay tiraa dadka wakiilka ka ah inta isugu yeertay tiraa warbar isu kaalaya dawlad goboleedow kaalay xisbiyada muxuu ahay siyaasadeedow kaalaya bulshadii rayidkay kaalaya oo qaybaheedii kala duwanaayo dhammoole war saan wax yeelnaa waqtigiina waa dhacowhaa muxuu ahay doorashadiina nooma qabsoomo haysan saan wax yeelnaa si la yeelo lama waaynayo sibaa la yeelayaa raalli la isaga yahay oo la isla qaatay wixii la isla qaato ama la isku ogaa ceeb ma keenaan hadday cillado iyo ceeb ka soo baxaanne eed ma keenaan layskuma eedayo dawladda fursaddaas tii hore waa soo gaftay tan yaanay gafinaan leeyahay tii hore waa soo gaftay tan weli waa taagantahay yaanay gafinaan leeyahay raalligaada waqtigu intu waa ku dheeraad waqtiguna waa aad u gaaban yahay waxaan rabaa inaan halkaas warkayga hadal jeedintii koobneed aan ku soo jeediyo muxuu ahaay waxaanan muxuu rabaa inaan ku soo dhaweeyo mikrofoonka gudoomiyaha madasha madaxweynihii hore mudane Shariif Sheekh Axmed soo dhawaad